taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada qaranka Soomaaliland gaashaale sare Faysal Cabdi Bootaan ayaa kormeer ballaaran ku soo galay bixiyay fariisinada ciidamada qaranka Soomaaliland ee deegaanada Sanaag Bari iyo Badhan sida magaalooyinka Carmaale Ceelbuh iyo deegaanada hoos yimaada waxaana taliyuhu fariisin kasta oo uu booqdo halkaasi sanad sharaf kaga qaadanaya cutubiyada ciidamada Soomaaliland ee halkaasi ku booqanayay isagoo si ballaaran ugu kuur galay habsami u socodka hawlaha ciidamadaasi ay wadaan waxaana taliyuhu fariisin kasta oo ciidamadaasi ku booqdo uga soo jeediyay hadal isugu jira bogaadin iyo dhiirigelin aad iyo aad baan idin salaamayaa salaam buuxdana waxaan idinka wadaa taliyaha ciidanka qaranka sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani ciidan ahaan sida u diyaarsanteena waa idinku hambalyeeynaa sida u ilaalisaan deegaanka iyo dadka iyo dhaqanka iyo jiidaha aad joogtaana waanu ka dheeragsanahay aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa oo boqolkiiba boqol aan ammaanayaa ciidamada fadhiisimada jooga sida wanaagsan ay u shaqeynayaan guutada 116aad oo deegaanka ay joogto gacan hanatay oo wax badan ka qabatay oo la dagaalantay dhuxusha iyo dabargoynta daaqa oo la dagaalantay wax allaale wixii nabadgelyo darro wada iyo guutada ciidanka jooga Ceelbu ciidanka jooga Dhahar ciidanka jooga Baraagaha Qol ciidanka jooga Fiqifuliye dhammaantood ciidamadaas waxay ka tirsan yihiin qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka waana ciidan amaanan sharafkoodii iyo karaamadoodii leh annaguna waxaan leenahay Allah idin barakeeyo hawsha qaranka oo haysaana qaranku waa idin ku og yahay oo fadhida taliyaha ciidanka saldhigga saddexaad ayaa sidoo kale ka hadlay hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland isla markaana xusay in ciidamada qaranku ay ku sugan yihiin fariisinadoodii Sanaag Bari iyo Badhan meel kalena aanay u diga rogan hadallada soo dulduulaya bariyahan dambe aan maqmaqlayna waxa ciidamadii Sanaag Bari joogay way ka baxeen meesha oo way aagbadisheen kama ay bixin guutooyinkii sidooda u shaqeynayaan way fiican yihiin waa kuwa jooga waa taxeero walba caalamku ka babanayo waxaan cid walba ogeysiinayaa waxa meelaha hadallada hadeer ka soo dulduulay ay yihiin oo aan maqlaayay saraakiil iska daba hadashay oo argagixisay iyo shabaab iyo wax ka sheekaynaysa horta shabaab hadii la sheego shabaabtu waxay joogtaa galgala iyo af urur bay joogtaa meelahaasuna dad Soomaaliland kama tirsanay Puntland bay ka tirsan yihiin malaha jananka iyo sarkaalkii cashuurba way ka khaldantahay shabaabtu waxay joogtaa galgala iyo af urur bay joogtaa meelahaasuna waa meelaha lagu og yahay Puntland xuduudaheeda annaga Soomaaliland gudaheedana ma joogto waxaan idin sheegaynaa annagu cidna dhibo ma hayno laakiin waxaan jecelahay in nabadgelyo iyo darisnimo wanaag lagu wada noolaado darisnimo wanaag ayna dhaqa mandaqadaas waa mandaqad nabadgelyo dadka Sanaag Bari jooga Badhan Hadaaftimo Ceelbu Dhahar Xingalool Damalla Xagare Carmaale dadkaas waa dad nabadgelyo waa dad soo jireen oo bareero ballaaran weeye waa dad wanaag iyo hufnaan lagu bartay ma aha dad dagaal iyo xamaasad iyo dhibaato la dhex keeno haddii aqooladiina ka imanaysa Boosaaso iyo Garowe afidada kala bixi weydaan annagu xuduudaha iyagu waanu sugayna waxa iyaguna markii uu taliyuhu halkaasi ku booqday halkaasi ka hadlay isla markaana taliyuhu warbixin kaga qaatay taliyaasha guutooyinka 116aad iyo guutada 93aad ee fadhiyadooda yihiin Carmaale iyo Ceelbuh ciidanka qaranka ururintii taliska ururkii labaad baa degan ana taliyo ururka ah taliyo ururintii labaad ururintii waa kan Soomaaliland dalbaawna si xog sheeg baa wax ka sheekay ciidankaas waa Soomaaliland xuquuqda aan ku leenahay baanu ka helnaa mid ka badan baanu ka sugaynaa waana waajib channel ciidan baa ku khudbadeeyay baa leeyahay we stand here and will fight if we not stay here life we will stay dead waxaanu joogeynaa halka waxaanu ku joogeynaa dhimasho haddaan nolol ku joogeyno waxaanu ku joogeynaa dhimasho haddaanu nolol ku joog weyno dhimashaan ku joogeynaa annagu Soomaaliland dad baa wax yaraadaan guutadii 116aad waa tagtay taliya indhahaagaad ku aragtaa guutadii 116aad waa joogtaa shakhsiyadan haystay baa tagay taliyihii guutada hore u haysan jiray iyo shakhsiyadan haystay baa tagay ciidankii waad aragtaa sidoo uu joogo sidoo uu shaqeynayo waajibka u qaadanayo haddana uu yahay waajibkiisa shaqadiisa waxaan kaloo leeyahay taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta saddexaad Faysal Cabdi Bootaan waxaan ogeysiinayaa inaan wax Puntland la yiraahdo halka jirin dadku waa Soomaaliland dalkuna waa Soomaaliland wala iskaranay dalkana waa la garanayaa dadkana waa la garanayaa halkan aanu joognaa waa Carmaale waa Soomaaliland dhulkaynu maanta marayna waa Soomaaliland waxaan noo yimi oo si sharaf leh karaamana loogu yimi taliyihii qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland annagu haddaan nahay guutada 93aad fadhiyadayadii baanu fadhinaa ciidamadu waxay ku sugan yihiin fadhiyadoodii sida Ceelbuh Dhahar
baraagaha qoldacayadaha la sheegayo la leeyahay waxba wareegay oo lagu hadlayo oo ku hadlayo ninkan generaalka ciidanka Puntland waxma kama jiraan lihiinana idin macallina ويونس شيخ أحمد Universal TV ورarka gobolka Sanaaga